waxaan wiiljarka u saaranahay anigu aan gaarin da'da soddonka inaan ka shaqeeyo mustaqbalka wiilkayga yaraa ee igu soo dhaweynayay garoonka iyo sidoo kale mustaqbalka dhalinyaro isaga la mid ah oo reer Puntland ah. maanta anigu waxa weeye 30 sano gaarin waxaan wiiljarka u saaranahay wiilkayga kaalka igu imaanayay mustaqbalkiisa 30 sano soo socota iyo 40 sano soo socota asaga kuwa la midkaaba inaan taangooyo oo aan waxa weeye mustaqbalka ku noolaan lahayn amaanta ilaaliyo. waxaan la wadaagayaa qisada wiilka dhalinyarada ah oo kamid ah ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalamayay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland ee halkaas oo dhaawac ka soo gaaray isla markaasna dalka dibadiisa loo qaaday. markii dalka dibadiisa laga soo celiyay ayuu jeediyay hadal dhaxalgal u ah dhiiranaana ay ka sii qaadayaan ciidamada geesiyada ah ee saarsan buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland ee la dagaalamaya kooxda argagixisada ah ee Daesh. sidoo kale waxaan la wadaagayaa dunida oo la yaaban oo wili hadal haysa sidii ciidamada difaaca Puntland ay u jabiyeen kooxihii argagixisada ah ee Daesh ku dhuumaalaysanayay buraha calmiskaad iyo sidoo kale qaababkii loo adeegsaday in kooxdaas awoodda badnayd ee ku dhuumaalaysanaysa buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland la jabiyo. labada qodob ayaan la wadaagayaa balse marka hore wax ka codsanayaa inay YouTube-ka ku soo birto oo subscribe dhahdo muuqaalkana laga saarto gambalelkana furato si ay ku soo gaaraan warbixinada ku saabsan deegaanada Soomaalida iyo sidoo kale gaar ahaan deegaanada Puntland ee aan halkan habeen walba ku soo gudbino. ninkan dhalinyarada ah waxa la dhahaa Raage Ciiro wuxuu ka mid yahay ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada ah ee Daesh. markii hore wuxuu ka tirsanaa saraakiishii ka shaqeyn jirtay madaxtooyada dowladda Puntland kadib dagaalkii buraha calmiskaad markuu bilaabmay ayuu ku biiray ciidamadii la dagaalamaysay kooxda argagixisada ah ee Daesh ee ku dhumaalaysanaysa buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland ee hadda in la soo gabagabeeyo ay wax yar ka harsan tahay. ninka dhalinyarada ah wuxuu ku dhaawacmay oo dhaawac ka soo gaaray dagaalkaas kooxaha lagula jiray wuxuuna ka mid ahaa ciidamadii halkaas ku dhaawacmay. dhawaan ayuu dalka ku soo noqday kadib markii uu xaalad caafimaad u aaday dalka dibadiisa ama loogu qaaday. waxa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe. mas'uuliyiin kala duwan ayaa soo dhaweysay. markii halkaas lagu soo dhaweeyay ayuu hadallo taariikhda galay oo inta badan dadka shacabka Puntland ay aad u hadal hayaan si gaar ah ay isku soo duubayeen ciidamada buuraha ku sugan ayuu jeediyay oo inta badan qalbiyada dadka reer Puntland aad u taabtay. waxaana erayadiisi kamid ahaa sida tan. maanta anigu waxa weeye 30 sano gaarin waxaan wiiljarka u saaranahay wiilkayga kaalka igu imaanayay mustaqbalkiisa 30 sano soo socota iyo 40 sano soo socota asaga kuwa la midkaaba inaan taangooyo oo aan waxa weeye wuxuu sheegay in uu wiiljarka u saarsan yahay inuu dhiso mustaqbalka dhalinyarada reer Puntland ee cadawga ku soo duulayna uu meel ka saaro. hadalka kale oo saameynta lahaa wuxuu ahaa in uu yiri wiilkayga dhalinyarada ah oo ama yar wiilkayga yar inaan ka shaqeeyo mustaqbalkiisa 30 sano soo socda uu ku noolaan lahaa haddii uusan hadda la dagaalamin. isagu waa hadalka sida u dhigmayee kooxda argagixisada ah ee Daesh waxay noqon lahayd ama intaas waa kasii tira badan lahayd haddii aysan lixaadkooda aysan u hurin isaga iyo kuwo kale oo iyagu naftoodaba u hurayba oo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland waxay noqon lahaayeen kooxo gobolka bari iyo sidoo kale deegaanada Puntland ba aad ugu faahfaahadhoona waxba laga qaban waayo sida koonfurta Soomaaliya ay hadda ku yihiin kooxaha argagixisada ah ee Daesh ee dhex gashay dadkii iyo sidoo kale bulshadii iyo sidoo kale ciidamadii iyo dowladdiiba ay kooxda Daesh ay dhex gashay ayna ku leedahay xubno si hadda koor ay dhacday in ciidamadii dowladda laga helay kooxo al-shabaab u shaqeeya in macallimiinta laga helay in hooyooyin u shaqeeya la arkay. marka saas oo kale ayaa la leeyahay bay ku noqon lahayd haddii aan dagaalka hadda kooxda Daesh aan lagu qaadin oo aan jabka weyn loo geysan. madaafiic ayay samaysteen sidii horaantii dagaalkaba lagu arkayay kooxda Daesh lagana wareegay oo ay rabeen inay ku soo weeraraan deegaanada Puntland. marka
wuxuu ka waramayaa in uu kooxdaas hadduusan jabin ama aysan la dagaalamin isaga iyo ciidamada kale ee hadda weli dagaalka kula jira kooxahaasi in ay la wareegi lahaayeen deegaanada Puntland isla markaasna wiilkiisa iyo wiilasha kale reer Puntlandba ay si gobonnimo leh aysan ku noolaan lahaayeen. Marka inta laga yimaado waxaa jira hadalahayn ka dhalatay sida ciidamada difaaca Puntland iyo dowladda Puntland oo isku duuban ay u wajaheen dagaalkaas ilaa hadda waa la hadal hayaa oo caalamku hadal hayaa sidee dagaalka loo wajahay ayaa leeyahay deegaanada kale ee Soomaalida iyo sidoo kale deegaanada kale Afrika ay ka dagaalamaan kooxaha nabadiidka ah Daesh ama Al-Shabaab ha ahaadeen sidee arintaas oo kale looga sameyn karaa. Waxa la ogaaday markii la baaray in ciidamo gaarka ah ee Puntland ay dagaalkaas galeen qaybna ay ka qaateen shacabka Puntland oo ay daacad ka ahayd in laga sifeeyo deegaanada Puntland. Waxa la leeyahay qodobka ugu weyn waa kan haddii aysan qayb ka noqon lahayn dadka reer Puntland waxa la leeyahay dagaalkaasi meel ma gaaran sababtoo ah wax ugu weyn oo ciidamada dhiirigelinaya waxay ahaayeen haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo mar walba la garab taagnaa ciidamada geesiyada ah hadday cad noqoto hadday caano noqoto iyo hadday wax kale noqotoba saarad kale noqotoba la garab taagnaa iyo dhiirigelinba ay la garab taagnaayeen oo ay garab siinayeen ayna ku garab taagnaayeen dagaalka adag ay kula jiraan kooxaha argagixisada Daesh. Dhanka kale waa dowladda oo iyadu arrinkaas u qalab qaadatay oo waxa weeye guul weyn ka gaadhay dagaalka kooxda argagixisada ah ee Daesh lagula jiro.